Hogaamiyaasha horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska ee Arsenal ayaa u safray garoonka Anfield si ay ciyaar xiiso badan ula soo ciyaaraan kooxda kaalinta sideedaad ee ku jirta ee Liverpool. Gunners ayaa bishii Oktoobar 3-2 ku garaacday kooxda Liverpool ayaa tagaysa Anfield oo ay ku jirto xaalad adag. Kooxda uu hogaamiyo macalinka reer Jarmalay Jurgen Klopp oo kaalinta sideedaad kaga jirta liiska kala sareynta horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska, halka Arsenal 8 dhibcood ay ku hogaaminayso horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska. Arsenal ayaa dib u heshay xidiga weerarka ugu ciyaara kooxda Gunners ee Gabriel Jesus ayaa 3 ciyaarood ee ugu dambeysay kasoo muuqday garoomada ayaa waxaa walaac ku haya xidiga kale oo muhiim u ah safka macalin Mikel Arteta oo dhaawac ku siigaya kulankan. Sida la sheegay, xidiga badan ayaa ka maqnaan doona kooxda uu hogaamiyo macalin Mikel Arteta oo ka mid yahay xidiga qadka dhexe ee daafaca ugu ciyaara ee William Saliba. Liverpool ayaa dhinaceeda u soo noqdeen xidiga muhiim ah sida Thiago Alcantara oo muddo dhaawac kaga maqnaa iyo Virgil van Dijk oo xanuun ku siigay ciyaartii Chelsea ee eberka kusoo galeen garoonka Stamford Bridge. Ayaa waxaa kulanka Arsenal aan dheeli doonin xidiga reer Colombia ee Luis Diaz oo inkastoo uu tam u yahay tababar fiican oo la qaatay kooxda koowaad ee Liverpool, balse tababaraha reer Jarmal ayaa sheegay in xidigan xaaladiisa khatar la gelin doonin ilaa ay waqtigan garoomada ka maqnaan doono. Kooxda Arsenal ayaa waxaa loo xaqiijiyay in ciyaarta Liverpool oo ka maqnaan doona daafaca dhexe ee reer Faransa ee William Saliba oo la filayay inuu kulankan ka soo muuqdo, balse waqti badan uu u baahan yahay soo kabashada dhaawiciisa, waxaana booskiisa buuxin doona xidigan daafaca ugu ciyaara kooxda Arsenal xidiga lagu magacaabo Rob Holding. William Saliba ayaa waxa uu ku dhaawacmay ciyaartii Sporting Lisbon ee tartanka Yurub Liigaha wareega 16 ee kooxda reer Portugal rigoorayaal ee ku reebtay hogaamiyaasha horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska ee Arsenal. Superstarka kooxda Arsenal ee Bukayo Saka ayaa keeska la dhigay ciyaarta Sabtida ee Leeds United, isla markaana uu Mikel Arteta xaqiijiyay in aanu tababaranin maalintii ka horeysay ciyaartaas ayaa tam noqday oo diyaar u ah safarka Anfield. Waxaa kale oo diyaar u ah xidiga lagu magacaabo Ben White oo jug qabay iyo Thomas Partey oo si fiican u ciyaaray kulankii Leeds United isaga oo kasoo kabtay dhaawicii kasoo gaaray ciyaarihii caalamiga ee dalkiisa. Kieran Trippier ayaa sidoo kale la sheegay inuu diyaar u yahay ciyaartan, laakiin Eddie Nketiah ayaa sugi doona ilaa bartamaha bishan si ugu soo laabto garoomada, halka Takiro Tomiyasu iyo Mohamed Elneny oo soo dhamaaday waqtigoodii xil ciyaareedkan ee Gunners. Daawade adima ku muuqata in kooxda Arsenal ee guul kaga soo laaban doonto garoonka Anfield ayna qaadi karto horyaalka Premier League dalka Ingiriiska oo muddo badan sugaysay.